waxaa la yidhahaa Cabdiweli Qabdiid Cabdi asxaabtan ay la fadhidana waa Garissa Football Club Associations kalaabyo ka kala socdaan ayagana hadalka waan siin doona ajendaha marka maanta aan maartay halkan aan press conference kan isku yeerna waxa weeyaan niman akhyaar oo maartay aan isku saaxiibanahay club officials yaan la Garissa ah ayaa shalay cod duubeen codkii ay duubeen yaa maartay hadda maanta ajendaha anaga uu yahay inaan wax ka dhahno codkaas oo ay shalay ku sheegeen dhowr qodob ay kaga hadleen dhowrkii qodob baan rabnaa in anaga isku hortaagno koow waxay sheegteen Garissa Club Association waxa la inuu jiro oo Garissa ka jiro oo dalad ah oo Garissa club yaasha 20 clubs ay ku mideysan yihiin waxaa nasiib darro ah raggii ka shalay diidanaa in Garissa Club Associations la abuuro oo la asaaso inay maanta diideen oo ka hor istaageen inay maanta magacii sheeganayaan ayaan darro ah oo nasiib darro ah club association oo clubyaasha ay ku mideysan yihiin waa fikrad aad u fiican laakiin shakhsiyaad baa laga wadi waayay shakhsiyaadkii laga wadi waayay ayaa shalay wuxuu sameeyay khalad asagoo aan loo dhannayn oo 20 koox ee Garissa iyo club officials kooda u dhannayn ayaa 4 nin baa intay meel istaagtay ayaa waxay isku magacaabeen club associations inay yihiin raggaasoo 4 nin aan ognahay inay dana khaas ah wateen iyo arrimo ayaga shakhsi ahaan ay maartay u wateen ay ahayd oo dana Garissa Football Fraternity ee shaqul ku lahayn ay wateen talabaad waxaan rabnaa inaan halka ka baaq uga dirno ummadan maxalli jiray North Eastern ama maartay khaasatan Garissa shalay nimanka waxay sheegeen team la yiraahdo Northern Wanderers inuu jiro ayagana ay la soconin lagana soo qayb gelin aasaaskiisa waxaan nasiib darro ah dadkaas shalay meesha video ka duubay inay samaartay dad macnahan aanu micneeyay dad hadda hurdo ka soo kacay oo maartay baski uu ka tagay dad hadda hurdo ka soo kacay oo ogaayeen in maartay team la asaasay membership waxa la jiro oo bishii fee yar oo waxa jiro mitimada lagu qabto oo maartay laga ururiyo jiro aan Afrikayga aan member baan ka ahay teamkaas Garissa kali laga ma asaasin North Eastern dhan baa laga asaasay Northern Kenya dhan baa laga asaasay patron kan waxa uu ahaa Mheshimiwa Aadan Bare Ducaale dadkaas arintii shalay intaas oo bilood soo socotay oo sida fiican looga soo shaqeeyay oo dadka ummadda Soomaalida meel walba ay ku nooshay ay soo dhaweysay ninkan isla ku nool ilaa iyo ninkan ku nool Mandera iyo ilaa Marsabit ilaa Isiolo arintii ay soo dhaweeyeen gacmaha la isku qabsaday oo rag madax ay ku jiraan governor ay ku jiraan MPL ay ku jiraan arintii la gabagabeeyay yaa waxa nasiib darro maanta magaalada Garissa sumcad darro u soo jiiday 4 wiil oo inta meel iska fariisatay dhahday maxalli jiray teamka waxba kama jiro ayuu u sababaynayo la yiraahdo Nuurdiin Badal Tubic baa teamka wuxuu ka yahay coach sida anaga ognahay kooxda wali coach looma magacaabin Nuurdiin waa member waa shakhsiyaadka ugu fircoon kooxdaas la asaasayo fikirkaas wax ka laha nimankii aasaasu ku jira laakiin waxa nasiib darro in qaarkood ee hadda coachnimo iyo waxaan structure ahaan baa loo sagaajeelayin ilaa hadda kooxda xulasho waxa lagu jiro ciyaartoy coach wali lama magacaabin captain wali lama magacaabin ciyaartoyda wali maartay lama soo qaadanin hadda weegi ugu dambeysay waxay kooxda ku jirtay ama maamulkeeda ku jireen xulashada iyo indhaynta ciyaartoyda maxalli jiray North Eastern iyo ku jireen way wareegayeen page-ka maartay Facebook-ga laga wada arkayay wax qarsoon ma ahayn marka in maanta intii la iska soo kaco loo wixii waxba kama jiro waxaan u maleeyaa tii hore ee Garissa ay ku hayeen hadda kuma qaban karaan sababtoo Garissa teedi yaa ka socon weeyay waa runtoodu Nuurdiin waa la doortay Sabran Chairman buu ahaa shaqadii uu ka tagay muddo hadda waxay dhaheen 3 sano inkastoo wadada ay ku qardaysanayaan oo 3 sano uu Nuurdiin u ka maqneen Nuurdiin background-kiisa anaga si fiican baan u naqaanaa
waxqabadka weyn ee uu ka geystay football waa naqaanaa waxqabadka weyn ee Garis ama Northeastern uu ka geystay waa naqaanaa waxaan baaq u direynaa dhalinyaradan yararka ee aan dadka aqoonta u lahayn ee profile qofka aan garanaynin inay horta soo bartaan Nuurdiin cid u yahay dad baa shalay waxay ku doodayeen ama nin baa shalay waxay hadal ka soo fakaday Nuurdiin Wajeer buu ka imaaday Wajeer waa magaalo dad Soomaaliyeed degan yihiin laakiin Nuurdiin si fiican u barto Nuurdiin xaafada Ali Maliyo buu ku dhashay ninkan aqoon baa garanayo ninkii yaqaana garanayo tan labaad waxaan rabaa Mheshimiwa Aadan Barre Ducaale inaan baaq u diro Mheshimiwa kooxdan Abatronka ka tahay waa aragtaa bilaadanka marka aad rabto inaad wax bilowdo challenges baa iska jiraan iyo caqabadii bay tan ka mid tahay in maartay afar wiil meel inta fadhiisato wax iska soo duubto caqabadii bay ka mid tahay aan moraaliga laga dilin kooxda sidii aan ku wada lahayn taageero buuxaan oo kugu haynaa waan kugu taageerna maalintii aan Nuurdiin challenge gareysay meesha aad kubadda ku ciyaaraysay habeenkii aad furaysay xafladii meerka aad tiri Nuurdiin caaw inaan ku challenge gareeyaan rabaa or koox dhis habeenkii dadkii ku sacbeen anaga ku jirnay waana fursad Northeastern dhan laga wada sugayay marka nimankan intay meel isku soo xireen wax iska soo duubeen anaga nima matelaan Garissa football ma matelaan shakhsiyaad koox baa wato aan ognahay cidda ka dambaysa waan ognahay dadka isku waxa programka wato dhan baan ognahay waxaan rabaa halkan oo kale inaan uga diro baaq branch Garissa inay ka dhaxbaxaan affairs Garissa teamska isku dhaxdilayaan ee kala wadaan sababtoo waxaan ognahay shakhsiyaad ka shaqeynaya arrimahaas oo dhalinyarada iyo kooxyaasha iska horkeenayo oo arinta ku jiro oo mas'uuliyadda iskale oo maqraati aan u hayno marka waxaan dhihi lahaa ka dhaxbaxaan kooxda Northern Wanderers loo dhahna ayadana maartay Northeastern iyo hadda fanskeeda wuxuu marayaa intaas oo kumanaan qof u marayaa wax oo afar qof oo meel isku soo xiratay ceelin karaan maaha taageero buuxan Garis ogaynaa waa arin aan soo dhaweynino halka fursad aan sugayno ee dhalinyarada talentkooda ay ku tusi karaan Kenyaanka kale marka in afar qof hadalkooda maanta niyad Mheshimiwa iyo dadweynaha ay ku keenaan anaga maartay rally kama nihin ninka saaxiibkii arrimo badan ayuu taabtay mar raba anigana inaan arintii inaan gudo galo oo hadana isku yaabana inay soo bilaabo ma doonay waxaan rabaa inaan hal iyo laba ka kor taabto in arintii shalay one horta Garis dib weyn baan haysto dibka ugu weyn oo haysto waxa way horumar dhan ma rabtiin anima garan karo dibka meesha uu ka socdo maanta markii ay imaateen arinta Northern Wonders waa arin Northern Eastern dhan maxalli jiray ay qusayso waay ma aha Garis bas meeshii la rabay inaad dabaal degtaan oo home ground Garis laga dhigay bay waxay noqotay inay dad soo baxaan mucaarad ay soo horfadhiistaan media wallahi dib weyn waa wallahi meeshii aan rabnay inaan sabcino oo maadaama Garis home ground looga dhigay oo dadkii kale xataa aan soo aruursano oo badanaba baan waxaan shalay arkay arin la yaab leh arintaas oo xataa live kale igu tusay waxaan la sugaynin baahayd marka ma raba inaan dadkii meeshaas magacyadooda la hal iyo laba aan ka taabto ay ku jumla ahaan baan isku dhibi rabaa saaxiib baa la wasgaranaa inta shalay soo fadhiisatay meeshaas ani ahaan ila ma fiicneen